الله وبركاته وين ولا سلامي أصحابتي دمي والبأدوكا كتشوكتان وولاشي دمولك أويدي ليه كسر دوادك عم فران قلب فران وجه فران سهر يقول تقانين وشانل كمولك دائما يفهم الكيدا ما أنت محن إيدين هايا محن عن كهذا إن شاء الله وحوية كورده bilicdeeda meesha ugu horeysa oo laga arko sidaan u ognahay aan u ogsoonahay waxa weeye waa wajiga iyo tinta marka maxaa gabadha qurxiyo wajigeeda maxaana tinteeda qurxiyo waa ujeedaan tinteeda ma sha Allah fake ma ahan waa tin waxa weeye ilaahay aan ii dhaliyay waa tin ma aragtay aan ka shaqeeyay marka waxaan rabaa inaan la wadaago saliidaha ugu muhiimsan ee tinta la mariyo saliid aad iyo aad u muhiim ah oo u wanaagsan oo tinteeda munaasabtay kuuna bixinaysa tinta ayaa inii sheegaya insha Allah fitamiino aad u wanaagsan ayaa jiro ayaa inii sheegi marka sidaa iyo la socod wanaagsan hablaha qaaliga ee igu xiran walaalahayga horta marka hore waa salaamantihiin ma sha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arin oo ku saabsan quruxda dumarka saan ognahayba gabadha quruxdeeda waxa weeye waa timaha ma sha Allah iyo wajiga labadaas hadii si fiican looga shaqeeyo inta kale waxa weeye oo iska way dhameystirmayaan laakiin wajigaaga oo bahdilan timahaaga oo ma aragtay nafaqo lahayn oo ma aragtay ka halaabay oo ka daadanayo waxa weeye si kasta aad u labisatid waxa weeye waxba kuma tarayo marka waan ogahay saaid Soomaalida qabaan timaha waa cawro I know waxa weeye gabadha xijaab inay saarato muslimada waan ogahay laakiin waxa muhiimka ah gabadha iyadoo xijaab saaranayso ayay timaheeda qurux ka dhigi kartaa ayay timaheeda ma aragtay gurigeeda ku qurxisan kartaa ayay gabadha timaheeda sawjkeeda isku qurxin kartaa bid'aadka isku mid ma ahan qaar waxa weeye waxay jecel yihiin maxaa banaanka inay ku qurxiyaan timahooga mar walba ay ka shaqeeyaan iska qurux badnaada qaarna waxa weeye waa dadkaasoo ma aragtay xijaabka wata oo ma aragtay laakiin ani kolley waxaan ka hadlayaa guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed quruxda meesha gabadha laga eego waa wajiga iyo tinta waxa ka wada wajiga haddii ka halaysan yahay waxa way quruxdaada way kala dhambalan tahay haddii timahaaga ay wax si ka yihiin oo ay ka halaysan yihiin waxaad ogaataa quruxdaada way kala dhambalan tahay marka gabdhaha walaalahayga waxaan ku baraarujinayaa in tintooda iyo wajigooda horta marka hore ay ka shaqeeyaan waxa ugu horeeya oo wajiga ma aragtay in laga shaqeeyo ay tahay waa in la keer gareeyaa wajiga in la xanaaneeyo ma ahan waxa ugu horeeyo in la mariyo make upka waxa weeye wax labaad ma aragtay qofka gabadha ah inay isku qurxiso ay tahay laakiin marka ugu horeysa make up kasta aad marsatid wajigaaga haduu ka halaysan yahay oo haaraka leeyahay oo nafaqaysneen gudaha ka nafaqaysneen oo banaanka kareemo moisturizer aad marineen oo kareemo ma aragtay habeenada la mariyo oo wajiga qurxinayo oo ma aragtay daada ka hortagayo oo dabeelaha iyo populationka iyo waxaas ka hortagaya jiro oo habeenkii la marsado qaar aroorti lagu baxaa jiro oo day cream ah waxyaalaha hadii gabadha ay iskula tacaalin wax walba oo wajigeeda cream wax kala make up ugu qaalisan haday marsato waxaad ogaataan mar walba waxa weeye skinka uu dhintay skinka waxa weeye waxba uma tarayaan waxba kaama qarinayaan laakiin markuu skinka nool yahay uu nafaqaysan yahay oo fitamiino kala duwan skinka kor iyo hoosba aad ka qaadanaysid waxa weeye skinkaaga cream make up kasta aad marisid waxaad ogaataa uu ku munaasabayaa marka waxa weeye saan ognahay waxa weeye kareemada la isticmaalo xataa dadka wajiyadooda waa kala nooc وجه وحوي ودراي وجه وحوي اللهم صل على محمد وأويل ووجه أو ما عرفتي مروا بفين كسب حيو وحول ما عرفت النقول وجه وحوي وجه نبرها كصباحة حتى أنا وكل سكين كيجا وسكين أو وحوي أويل كا وحول بس كمان مرين كرا كريمة إيه قاسة شرو أو شركة ولا كم مناسبة
marka kareemadaas inta badan marsadaa kareemadaas ma aragtay hadii laakiin wax kale oo dhaafsan kareemada amariyo waxa weeye anoo dhan wada nabra noqdaa marka qof walbana waxa weeye skinkiisa waa u gooni oo bini aadan ah skin gooni ilaahay u dhaliyay nooc gooni u dhaliyay laakiin muhiimku waxa weeye inaad ku dadaashid skinkaaga si ma aragtay mar walba u ahaado skin oo nool weji oo qurux badan maxaa weji oo aad u malaysa ma aragtay inuu yahay weji oo dhalinyaro ah haddaad rabtid waaye inuu wejigaaga mar walba ishaayo da-da xataa waxay dadku ugu soo degdegtaa waa marka wejiga aadan ka shaqaynin waa marka ma aragtay waayo waxaan special waxaan la hadlayaa hablahan oo jooga wadamada qaboobaha sida hadda wadanka aan ku noolahay oo kale wuxuu u baahan yahay si xoog leh in looga shaqeeyo wejiga oo mar walba kareem aad ma aragtay aad kula dadaashid talabaadna waxay ka mid tahay programkan aan ugu talagalay waa programkii hore ayuu barbar ayuu la socdaa oo ahaa habka wanaagsan ee aad u bedeli kartid noloshaada wuu ka mid yahay waayo qofka haddii skinkiisa oo u foolxun yahay mise skin oo wanaagsan uusan lahayn waxa weeye qofka noloshiisa iskuma qanacsano waayo wuu jeedaa wejigiisa damage inuu uu leeyahay for example inuu haaro leeyahay uu ka xishoonayaa dadka inuu soo dhex galo uu ka xishoonayaa ma aragtay inuu ma aragtay magaalada u baxo yacni inay wax si ka yihiin uu dareemayaa laakiin markii wejigaaga uu clean yahay markii wejigaaga uu qurux badan yahay markii wejigaaga aad ogtahay inuu dhalaalayo ma aragtay kareemo wanaagsan aad marinaysid oo afka aad ka qaadanayso fitamiino wanaagsan oo skinka qurxinayo marka adigu waa isku qancaysaa waxaad ogtahay inaad qof qurux badan aad tahay marka maanta waxaan rabaa inaan la wadaago hablaha ani waxa jiro kareemo iyo qaas ah insha Allah gadaalaan idinka soo sheegi oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan oo ani muddaba aan isticmaalayay anaana ma aragtay guul ka gaaray anaana dareemayo inuu ma aragtay munaasabay waxaana jeclahay gabar walba oo Soomaaliya inuu munaasabayo hadduu alla yiraahdo waxa laga yaabaa inaan business ahaan u keeno mustaqbaliyan waan in la wadaagi doonaa waa kareemo aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxa ka horeeya kareemada qof walba intuu awoodo hadda inuu ma aragtay uu la tacaalo oo wejigiisa uu ma aragtay uu ka shaqeeyo waxa jira oo kale timaha waa waxa kaliya qofka gabadha ah bilicdeeda meesha ugu horeysa oo laga eego gabadha waxa weeye gabadha yani dumarkan ka wadaa sideedaba tintaada waa inaad ma aragtay ka shaqaysid waa in haddii lagu qabo iyo haddii lagu qabin haddaad xijaaban tahay iyo haddaadan xijaabnayn tintaada mar walba waa inay ku qurux badan tahay waa inaa ma aragtay nafaqaysid waayo siduu jirkaaga u baahan yahay cunto ayay tintana iyo skinkan u baahan yihiin iyo jirkaba uu u baahan yahay cunto aad siisid marka waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga taxadaro tinta waxa weeye waa shaambooyada waa inaad ka taxadartiin tintaada marka ugu horeysa waa inaad ogaatid inuu tahay tin dry ah mise tin oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa oil ah oo maxaa la yiraahdaa khafiif oo saliid ah marka waxa weeye markaasaad garan kartaa shaambooga ku muhiimsan yani aad marin kartid shaambooga oo ma aragtay aad ogaan kartid inuu yahay shaamboo ku munaasab ah marka ilmuhiim maanta waxaan rabaa inaan inila wadaago insha Allah waxa jirta saliid dad badan ay isweydiiyay dad badan waxay yiraahdeen walaalay tintaadan matin oo waxa weeye fake ba ma ahan fake tintayda waxa weeye waa tin oo ani ilaahay ii dhaliyay ma sha Allah familka dhana tin qurux badan intii taqaana ما شاء الله أنا جنون كشقيا رنتي وتنتي حوي إلا حد أيام ما عرفتي أد وحنانية وحناي دتك أرورت إلا هبين كتنتي دا ما عرفتي طبعا نوع نفقة مرينا سجور مركن شو أنا شقينين وساق على تنتي دا أنت صو ما عرفتي أنتو إسكوشي دا ومريا لكن واحد شرطو مد أيا شرطو واحد رواينا إني لو داجو saan hore inuu sheeg walaashiina waxa weeye qof qalbi wanaagsan waxaan jeclahay aan wixii qurxiyo in gabdhaha walaalahayga ay iyagana isticmaalaan
waxaa jirta saliid aada iyo aada ii munaasabtay oo tinteydana ii bixisay runtii waxaan u bixiyay saliidda mucjisada ah waa markii ugu horeysay aan dad la wadaago waan ini tusayaa insha allah waa saliidan meel walbana waa lagu gadaa waa taas waxa weeye bahalka cas ayaa ma aragtay ka otinta bixinaya ah kana waa ka marka waxa weeye qofkii u baahan waxa weeye insha allah youtube-ka waa uga jeedaan waa weydiin kartaa meel walbana waa lagu gadaa waxa weeye saliid oo yaab leh waana saliid adag tinta waxa weeye wiiga 3 jeeraad marini maasha allah waxa weeye dabaday kuu istaagaysaa tintaada taa waa mid tinta ayay qurxisaa wayna bixisaa waxa weeye hindina waxay kaaga dhigaysaa tin oo soft ah oo ma aragta aada u jilicsan runtii marka maasha allah saliidda ha u dayman la-aanina talabaadna tinta bixiso waxa weeye waxa afka aad ka qaadanaysa haddii fitamiino wanaagsan aad ka qaadatiin tintaada way bixi iyo cuntada aad cunaysid tinta qaarkood waxaa jara waxa weeye waa shaambooga oo xun iyo saliidda kugu xun labada haddaa ka taxatirtid tintaadu wayna baxaysaa jajabkana way ka ilaalini especially hadda saliidan oo kale jajabka way iga ilaalisaa waxay u yeeshaa dhalaal tinta wayna bixisaa waa saliid horta aada iyo aada ana waxaa u bixiyay saliidda mucjisada waa saliid aada iyo aada ii munaasabtay saliidan yaa loo dayma la-aanin waxaa kaloo jira kan waxa weeye sooya qofkii yaqaana Finland ayaa laga helaa ma garanaya adduweynaha kale in laga helo kanna waxa weeye wuuna ku caateynaya intaasoo nafaqana waa kan qofkii raba uu arki karaa waxa weeye wuxuuna ku siinayaa wejiga qurux ayuu ka dhigaa wejiga skinka oo dhan wuu qurxiyaa tinta wuu bixiyaa intaasoo waxaa ku jira ma aragtay oo fitamiin wuuna ku dhuubayaa runtii waxaana laga helaa meelaha oo cuntooyinka dabiiciga lagu gado oo wadanka Finland meel walba aad ka helaysaan gabdhaha ila socda iyagana waxa weeye insha allah ha soo gataan aad buu u fiican yahay talabaadna fitamiinada aad bay muhiim u yihiin fitamiinkan zinc la leeyahay nolosha ma dhaafo zinc waxa weeye meel walba aad ka heli kartaan cidiyaashu u fiican yahay tintana wuu bixiyaa kan waxa weeye qofkii raba in tinta ay u baxdo kiniinkan afka ha ka qaato waa zinc ayaa la yiraahdaa aad buu u fiican yahay qofkii qaata wuu qaataa qofkii aanan qaadanna waxa weeye waa inuu hadda isku daya inuu qaato kaas waa mid talabaadna waxaad ogaataan ani waxaan qabi jiray wax la yiraahdo anemiyadana waxa weeye dhibaato badan ayay u keentaa qofka bini aadanka waxa weeye skinkaaga caajiska ma aragtay maxaa la yiraahdaa tinto ka daadanayso waxyaalo badan ayay dumarka isku arkaan anemiyada waa xanuun xun inta badanna dumarka Soomaaliyeed waa laga helaa anemiyada waxa weeye waxay qofkii dhiig uu ku yar yahay dhakhtarka ha la xiriiro noocyada dhiigga la baaraya waxay eegayaan hadba ma aragtay dhiiggaaga wixii ma aragtay saameynaya inaad anemiya aad yeelatid marka alxamdulillah ana fitamiinada aad baan fitamiino xoog lahan qaataa oo ma aragtay multivitamin ah iyo zinkigan iyo kanaaba waxa weeye intaas maadaama aan isdhuubayo aan ahay hooyo isdhuubta weligay noloshay ma dhaafin bahalkan sooyada kan ha u dayma la-aanina waxa weeye jirkan wuu qurxiyaa tintan wuu qurxiyaa waxa weeye wuuna ku dhuubayaa waxaa kaloo jirta kanna waxa weeye maalin walba waxaan ka qaataa waa waxa weeye feerada anemiyada way soo kicisaa runtii kiniinka ma wanaagsana ani kiniinka waan ku lalaboodaa dumaraa jiro waa ka qaata noocan weeyaan meel walbana waad ka helaysaan caruurtana waan siiyaa anigana waan qaataa waayo waa feeradana waa muhiim gurigaaga inay ku taalo mar walbana aad qaadatid feeradana waxa weeye waa dhiigay soo kicisaa dumar waxay ku leeyihiin calooshayna adkaysaa qaar waxay ku leeyihiin waan ku lalaboonaa qaar waxay ku leeyihiin bahalka xumaaya laga sameeyaa qaansiirka marka bahashan aad u fiican tahay waxa laga sameeyay qudrado iyo
waxaweye full ayayna ka dhigaysaa dhiigaaga inay miyadaada ani noloshayda ma dhaafo waxaweye caruurtaydana waan siiyaa anigana waan ka qaataa hal qaada aroor kasta maasha allah waxaweye dee intaas ayaan jeclaystay runtii quruxdana wejiga iyo quruxda oo tinta waa muhiim gabdhaha Soomaaliyeed inay wejigooda kaliya uusan noqon inay marsadaan maxaa la yiraahdaa cadeyso iyo kareemada la isku cadeeyo wejigu damage ayuu ku keenay waxa weeye haaruu ku keenay wuxuu ku keenay nabru ku keenay marka ma fiicna mustaqbalna ma lahan gabadha iska cadeyso waxa weeye skinkeedu ka baabaa uu ka dhintaa marka ani hablaha waxaan kula dadaalay aan ku goobaabinaya inay jirkooda wax dabiici ah ay mariyaan ukunta casaanka aad jirkaaga aad saartid week hal jeer يعني biyaha intaad ka qaadid gaduudan mar aad saartid maalinta weeka kalena dacad kaliya aad saartid wajigaaga ma sha Allah mar walba waxaad ahaanaysaa qof wajigiisa qurux badan yahay dhalaalay shine ku siinaya daadu ka ilaalini damage iyo population qabowga ka ilaalin waka ugu yar weeyaan adoona gaarin kareen marka gabdhaha Soomaaliya waa inay gacanta isku hayaan oo inay skinkooga ay ka naxaan waa inay wajigooga mar walba qurux badnaado dumar badan ay weydiiyay wajigaaga muxuu sidan la yahay qof ma aragtay daadaas sheeganaysa wajigaaga isma lahan marka waxa weeye wajiga iyo timaha waa gacan ku hayn marka kole insha Allah wixii kale oo aan inigu dhaamo gadaana iniga soo sheegay haduu alla yiraahdo laakiin intana muhiim ah hadda aan tusay dukaan kastana waad ka heli kartiin waxa weeye waana inaad ku dadaashiin saad waayo gabadha quruxdeeda wallahi waa tinta iyo ma aragti wajiga tinta iyo wajiga ku dadaala waxan kale waa periodka labaad make up la saaro sunayaashan oo lagu dhajisto nice yani cidiyaasho oo la hagaajisto waxan oo kale necessary ma waxan waxa weeye waa qaybta labaad la qaybta ugu horeyso waa wajigaaga inaad ka taxatirtid oo aad qurxisatid oo aad ma aragti mar walba kareemo iyo nafaqo aad siisid wajigaaga marka intaas aan uga bixi insha Allah waa inoo mar kale iyo kulanti dambe insha Allah xiiso leh وانا ولاشينا ملك او idin leh sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh